على رسول الله ثم ما بعد. وسورة البقرة آية 16 قال الله تعالى إلهي باوحل وإذا قيل لهم marka lagu yiraahdo gaalada ama munaafiqiinta marka lagu yiraahdo آمنوا الرماية قالوا وحي أرميان آمنا وانوا الرمينا وإذا لقوا الذين عفوا وإذا لقوا الذين مركا كوي لكل مان وإذا قيل لهم مركا لقوا إلى هذا منافقين آمنوا الرماية كما آمن الناس سيدا أصحابته الرمايين وكلا قالوا وحي أرميان منافقين أن نؤمن ميان الرمينينا كما آمن السفهاء sida u rumeeyeen dadka aqliga gaaban iyo kale asxaabtay ku sheegayaan kuwa aqliga gaaban alaabu ilaahay hooya innahum iyagu munaafiqiintu hum sufahaa wa kuwa aqli gaaban iyagu baa kuwa aqli gaaban walaakin la ya'lamuuna ma garanayaan wayda laqul ladina aamanu dadka ilaahay rumeeyay markay la kulmaana qaaluu waxay oranayaan munaafiqiintu aamanna ilaahay baan rumeynay oranayaan وإسكا شهادنا وإذا خلوا مركي لقوني نغضان إلى شياطينهم منافقين تودواوي مركي اسكو قوني نغضان قالوا وحيورنا يعني إنا معكم أنكو إذن كايان وإذن وهلينينا وإذن لترنا ومنافق لماذا إذن لقبنا إنما نحن مستهزئون وأنو كل ديلين قال هذا sidaasay muuminiinta waan ku dheeldheelaynay munaafiqiintii buu halkan ilaahay kaga waramay subxaanahu wa ta'ala iyayna yihiin dad beenaalayaal munaafiq run male waa nifaaq laftiisa ka soo horjeeda runta marka asxaabtu way waanin jireen sidoo rasuulkuba u waaninayay sallallahu alayhi wasallam waanadu waxay ahayd ilaahay rumeeya oo iimaan sax rumeeya marka qowlka muhiim ee qaa'ilku muhiim ah qowlkan qiimaha badan baa munaafiqiinta loo geysanayay aayaduna waxay daliil u tahay noo cadeynaysaa mar walba kelmadda xaq inay jirto oo dadka xaq loogu baaqo oo gaal iyo munaafiq midnaba aan looga habranin waayo waa amaana marka asxaabtu iyaga oo munaafiqiinta waaninaya saasay ku oran jireen aaminu كما آمن الناس كإيمان الناس تدك سير رميان أصحاب سير رميان وكلا مركا إيمانك يسكن ما هي إيمان الصحابة رضوان الله عليهم إلهي با تسكيية أما أماني أصحاب إيمان كودا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الدور رميان سيدا إذن كون رميسان وكلا وهنونين وأنا ذا ويدي ذا نوحي لأن سيدا في السفهاء أنا أقول رمين مين سفهادو waxay ula jeedaan Ammar Bilal Khabbab Suhayb asxaabtii waaweynaa iimaanku qanjaha joogay ee quraan iyo xadiis ba ay amaaneen kuwaasay sufaha ku tilmaameen marka gaalku waa akbar safih ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه دينتي النبي إبراهيم وحنا عيب لهاي القفك السفيهة marka safahada iyo aqli gaabnaantu gaalnimada ku jirta gaalkiina qofka muuminka abu safiih ku sheegaya isla markaa waxaad ka fahamtay beenta waxa uu heliyaa inay yihiin kuwo isla weyn ama waxaan ahayn soo haysta waxa kale oo ilaahay uu ku sifeeyay jahli walaakin la ya'lamuun ma garanayaan cilmi ma leh علمي والله بقى يبغى علمي قال إلهي كبرين أنا آخرة كبرين إن حقيقة هذا كبرين علم لما يلا وعلمي المادي جاء الدنيا ده قال هذا إلهي وقرأ وحري يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وقال كالدنيا ده وحوي كيقانا وإن قال كإنه عري يدل بوح كل قاتية وهم عن الآخرة هم غافلون لكن علمي جاء آخرة لا كبرني إلهي كبرين ما يقانا ووحيا ولكن لا يعلمون markay la kulmaan hadaba وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum qaybtaa dambena waxay tilmaamaysaa inay yihiin kuwo laba shakhsiyadood leh qofka muuminka hal shakhsiyad buu leeyahy meel loogu soo hagaagaa buu leeyahy fi saraa'i wadaraa wakhtiga dhibka iyo dheeftaba farxadda iyo naxdintaba meel baa loogu soo hagaagaa laakiin munaafiqu meel loogu soo hagaaga ma leh maalin walba awrkiisuu ku kacsanaya ama wixii maslaxadiisa ah ayuu isleeyahy dhinacan u dhaqaaji kii ashahatay wuu la ashahatay kii gaalooba wuu la gaaloobay waa waxa siyaasadda casriga loo yaqaano mabda' joogtaa ma laha bay idhaha siyaasaddu ee maslaxad joogtaa bay leedahay waa nifaaq qofku haddaanu mabda' joogtaa lahayn dee muslim maaha waxa aayadda ilaahay uu ku caddeeyey kolkay mu'miniinta la joogaan waa mu'min baanu nahay waa shahaadanay gaalada kolkay la joogtaan gaalaanu nahay bay leeyihiin markay la joogaan kaasina waa jariimad waa dembi kale ay galeen macnaha qofka waxaa la doonaya inuu ka mid noqdo min asxaabi almabaadi laa min asxaabi almasaalix qofka muuminkiihi waa saaxibu lmabda mabda buu leeyahy oo kaasuu ku dhimanayaa ku noolyahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kaas islaamnimadaasuu ku nool yahay waana ku dhimanaya kan kalena waxa weeyaan maxaan wax ku helaa xaggee wax laga cunayaa xaggee kursi laga helayaa xaggee magac laga helayaa saasuu socdaa ayaddu waxay caddaysay dadka qaarkood oo insiga ka mid ah isagoo ifka jooga in shaydaan lagu sheegi karo waidaa khalow ilaa shayaaiinihim shaydaan waxaa la yidhaahdaa almarada qofka maaridka ee madaxa adag jin iyo insiba ayaa la yidhaahdaa shaydaan marka insiga qayb ka midabaa dadka mufsidiinta ee dhulbiiska ee gaalada waa shayaaiin bale waa shayطana fulaan wuu sharbatay wuu madax adkaaday xaqii buu diiday شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سورة الأنعام جن ينسي شياطين تودي سوى حيونيس وحكى الصوم مدحت كاذانا والصداع نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول الكلب الأسود الشيطان أي مدوب بيسقى الشيطان ووحبا صوم مدح هذا لقنا حور بطن إنما نحن مستهزئون gaaladiinaanu la jirnaa laakiin muslimka waxaanu ula ashahaadanay waanu ku dheeldheelayn dheeldheel bay naga hayda dhab nagamay ahayn inay moodaan inaanu la jirno oo isku kaaya haleeyaan oo waxna siiyaan jeedadu intaasay ahayd allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim baadidooda yacmahuuna iyaga oo ku wareersan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye اشتروا الضلالة بادي بيكو يفسدين بالهدى هنون فما ربحت تجارتهم باع مشتري قوداسي أما قناعسي قوداسي مو ربحين معناه ما فائدين وما كانوا مهتدين ما نهمونين استهزاء قودو ومد بلا معنى ومد حد كذبة ومد حق الرأى استهزاء إلهينا ومد حق مركز صفاتك aayaadka ku soo aroora ama axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qur-aanka mar hadduu ilaahay isu sugay waa in loo daayo laba qaybood baanay u qaybsan yihiinoo sifaal sidoodaba kamaalu leh oo mar walba aan wax nuqsaana lahayn sida alraxmaan alraxiim alghafuur sidoodaasee ilaahay magac iyo sifo ugu yihi sifaadka qaarkoodna qaydka marka dabar loo sameeyo ee wax lagu qaydo ama wax loo idaafeeyo ayay leeyihiin ammaanta waana siduu qur-aanku u isticmaalo iyagoo qaydan ama dabran buu isticmaalaa haddii laakiin gooni loo saaro dhaliil bay yeelanayaan taasina sax ma aha oo dee siduu qur-aanku u daayin waa in loo daaya almakru waalkhidaacu waalkaydu waalistihzaa waa ereyadaas weeye innahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan sida halkan oo kale allahu yastahzi'u bih wayamkuruuna wayamkuru allah marka sidoodaa loo daynaya laakiin qeydkaasaa la socda oo lama odhanayo allahu mustahzi'un wa mukhaadicun wa maakirun ereygiio saa u mutaxan oo aan dabranayn lama isticmaalayo laakiin waxaa loo isticmaalayaa khaadicuhum mustahzi'uhum wa yakiiduhum saasaa loo isticmaalaya idaafadaas iyaday la socoto idan markaa ammaan wey
marka istihzaaga ilaahay ama hadduu ku dheeldheelay waxa weeye mid ay xaq u leeyihiin oo aan koodii xaqirna ahayn ka ilaahay macnaha wuxuu kugu adkaan doonaa erey ama dadka qaarkood oo shabaha ugu adkaadaa sifadan ilaahay bay u qaadanayaan sifadii makhluuqa inay la mid markaa dee uu kugu adkaanaya laakiin markaad aaminsan tahay aad u qabto wuxuu ilaahay isku sifeeyey inaanu la mid ahayn waxa makhluuqa ee uu ka duwan yahay oo isaga u qalmo dee kugu dhib badan mayso laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-samii'u al-basiir sida samciga iyo basar uu isugu sugay uu inaga duwan yahay sidaasunba istihzahooda iyo istihzaha ilaahayna u kala duwan yihin marka xabad jiijiidin bayna duwina mayna allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku dheeldheelaya mid iyaga u qalma tusaala ibn cabaas baa bixinaya radia allahu canhu allahu yaskharu bihim buu leeyahy ilaahay baa ku dheeldheelaya wa xabru lumma caalimkii ummadda mufasiru lqur'aan saasuu ku fasiraya marka uu sii fasiraa wuxuu yihi aakhiro maalan marka nimankaasi ay yimaadaan munaafiqiintu ee muuminiintu ay jannada galaan albaabadii jannada loo furaya way sii guclaynayaano way ordayaano markay albaabka marayaan qam ayaa laga xidhayaa waa istihzaagii wey way lu go-eeno halkaasi adhaxda kaga jabeen suurat lxadiid haddaad akhrido waxa ay tilmaamaysa suuradda aayaad ku sugan ay xusayaan dadkii muuminiinta ayoo socda oo iftiinkii iyo nuurkoodii wata yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum اlyowma jannaat munaafiqiintii markaa adduunkii hebeladan yaqaanee la saaxiibka aha ee tolka ahaayeen ayaa is odhanaya bal dadkan siraatay ee sii iftiimaya idinkuna dabagala way daba dhiganayaan kolkaasaa ilaahay uhi faduriba baynahum bisuur lahu baabun baatinuhu fiihi الraxma wa ظaahiruhu min qibalihi اlcadaab yunaaduunahum alam nakun macakum waar dee sawtaynu ifkii tolka ahay inaynu wada joognay maxaa laydhka nooga baktiisanay albaabka nalagu gudbay markaasaa maxaa la leeyahay qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaratkum اlamaani ilaa aakhir اlaayaat marka iyagoo soo bidhaansanaya oo leh nuurkaa wax idinka qaadanena suga ayaa lagu xidhayaa waa istihzaaga ay ka mid tahay tusaalayaal badan baa jira marka ilaahay markii ay xumaanta doorteen buu xumaantoodii usii badiyey duqyaankoodii wa yamuduhum fii duqyaanihim yacmahuun hunaaka farqu bayna alcamaa waalcamah camah waa wareerka dawakhaadda uu qofku dawa ku jaha yeelan waayo alcamaa waa indhala-aanta indhala-aanta wey si kale haddii loo dhigo indhala-aanta qalbiga ayaa la yidhaahdaa alcamah yacmahuun waa sida halkan oo kale indhala-aanta indhahani ay wax kaa noqdaanna yusama alcamaa oo waa ism maqsuur ahoo alifkaasi uu ku taagan yahay idan markaa nimankani qalbigay ka indhalaayihin munaafiq qalbigu ka indhalaayahay marka qofka qalbiga ka indhala wareer baa ku dhaca jiha ma laha sida qofka indhahan beelaaba uu u dawaku dhan u socdo u garan waayo marka hamoodin yacmahuuna ha ku fasirin way indhalaayihin laakiin waxaad ku fasiraysaa way wareersan yihiin iyadoo indhala-aantii qalbigaba kollayba ay tahy waxa aayadda ku xigtaana ay tilmaantay ulaa'ika aladiina ishtarawuu dalaalata bilhudaa famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin waxay xusaysaa aayaddaasina in ifkan dadku intay joogaan kollay ganacsi bay ku jiraan qofku waxna wuu iibinayaa oo wuu sii bixinayaa waxna wuu soo qaadanayaa dadkii baa kala duwanoo ku ilaahay hanuuniyey wuxuu iibinayaa wax qaaliya wax ka sii qaalisanna wuu soo qaadanayaa naftiisuu iibinayaa maalkiisuu iibinayaa wakhtigiisuu iibinayaa cilmigiisuu iibinayaa ilaahii siiyey buu ka iibinaya ayuu ka iibinayaa wax ka qaalisan oo dembi dhaaf iyo janno ana wuu ku soo qaadanayaa iyo hanuuna ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum اljanna yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calىa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim aayaadka si akhri suuratu saf kan kale laakiin iimaan laawaha ah iibkiisu waa maxay hanuunkiibuu ka baxay oo hallowbuu soo qaatay oo iimaankiibuu ka tegey oo gaalnimuu qaatay oo akhlaaq xumuu qaatay waa kaa ilaahay tilmaamay ulaa'ika aladiina ishtarawuu dalaalata bilhudaa ba'du waa tarkiya ishtarow bimacnaa istabdaluu
الضلالة بالهدى بترك الهدى هنمكن هالكاسة كتورين baadina way iibinayaan waxa la waxa adduunyada maanta la gucleynaya ee dawladda la gucleynaya ee hay'adda la gucleynaya ee uu gaal wado waa intaas alaabtan xuniga iibso alaabta qaaliga tuura ilaahay ka taga oo rasuul ka taga oo diintiisa tuura oo dhaqan xumada iyo qaawanaantii iyo akhlaaq xumada qaata waxa la waxa macaan baa lagu saliday diidaya waxa xunna way bedel qaadanaya حنا تيجي النقط فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وخسارة يهلو فكتبوا يكتب طبعا المامود بآياتها إنصار منافقين تأشياء وإلى هاي وكسي في طبعا كاسر لأنه أشياء إنه كفر لنا إنه كفر عنه والكذب بنت الخداع خيامه الإفساد دول بإسنمه العجب اسقنعني يسلوينان الضلال وهلو يبادي عدم قبول الموعظة يقول وانا ذا أقبل التذبذب يقول قال يا إسلام الدحية يقول بدنو عررية الاستهزاء يقول كل الليلة يحقي أهل كيس السفه عقل قابنا طبعا كاسائل هاي وكت الماب نتيجة ذا يدحلنا وامح الخسارة والضلال والحيرة والخوف خسارة هيكون خسارة وحي أي قرعس قليل يو بادي يو ورير يا عبسي هل كوينو أرقنا خسارة هذه آيات ندن بيسا شيكت هل لو قنا آيات ندن بيسي آيات هربوا شيكت في طغيانهم يعمهون وما كانوا مهتدين وهل لو حيرة يا ورير كان حيران لماذا نوح الشيء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خوف كي عبسدنا وحا شيغيا تصالها كسيخيغا او كصيب من السماء marka afarta natiijo ama afarta jawaabood bay heleen markay 10 talaabo xun qaadeen marka dadow iska ilaaliya cudurrada noocaas ah arax jabka iyo aakhira seega iyo alla seegaasa lagala kulmaa iska ilaaliya waa digniin quraanku bixinaya marka halka waxa kaaga muuday inay mudan tahay cudurka in la iska ilaaliyo la yiraahdo nifaaq in waajib tusaalo hadaba ilaahay bixiyo wuxuu mathaluhum munaafiqiinta tilmaantoodu ka mathal alladhi qofkii oo kale weey ama jamici oo kale ama kooxdii oo kale alladhi kooxdaas oo istawqada naara dab shiday falama adaat ma hawlahu markii uu dabkii iftiimiyay ma hawlahu جمعا وحي هريره سأها ذهب الله بنوره إلها افتين كيبو كقاضي افتين كودي بو كقاضي نور كودي وتركهم وحكقتك في ظلمات مدويال قدع ريال لا يبصرون يقوم حباركين صم وانمن أفلاء صم وانمن دقلاء بكم وأفلائهين عمي وإندلائهين فهم لا يرجعون ما صار نقنا يعني يجو مركا waxa weeyaan qof aan dhagana xaq u lahayn kuna dhawaaqi karayn arkina karayn natiijadiisu waxay noqotay inaanu soo noqonayno rajo lahayn marka laba tusaale ayaa ilaahay halkan uu ku bixinaya munaafiqiintu ay leeyihiin labadaba aad ku shabihi karto ama kolba mid aad ku shabihi karto ama iyaga kooxahooda aad oran karto kooxdaasina tusaalahaasay leeyihiin kooxdaasina tusaalahaasay leeyihiin مثل كان صهر يا وحوي منافق وحو لمد يهاي با إلى هاولي ضد مال فريس طب شي طب كي مركو هريره هودي ويفتيميه اي كم مفسودين هبينك ايوم الدم الى هيك بختي في ظلمات لا يبصرون marka waxaad ka soo qaadaa adigoo meel qarfaa jooga roobna jiro daruurana cirka ku shaqlan yihiin iftiinkana u baahan oo iftiinkii uu ku baxayo dam meesha ay tiraado saddex gudcur baa sameeyay gudcurkii habeenimada ama madowgii habeenimada iyo madowgii daruuraha iyo madowgii uu lahaa ku madoobeynta lagu madoobeeyay hadda wada qofku hadduu baadiye joogay uu garan karay haddii marka aad madow iska dhex joogto markaaga hore oo iftiin iyo dab aanad arag wuxuun baa ku yar bidhiiqaya wuxuun baad yara bidhaaminaysaa in yaroo madmadow waad arki karaysaa iftiinna yaryar waad loodi karaysaa laakiin haddii iyadoo iftiin weyn ku baxaya dam lagaaga dhiga fartaadan ma arkaysid
waxaad ka akhridaa nuur hadduu gacantiisa fidiyo qofku ma arkaya xataa saddexdaasaa kulmo waa kaa ilahay yihi fii ظulumaatin laa yubsiruun marka munaafiqiina waa saas oo kale oo waxa weeye markii hore wuu ashahaatay dee iftiin baa u baxay iftiinkaa isagoo haysta ayuu gaaloobay meeshii baa ku madoobaatay marka gaalnimaduna madowgaasay leedahay iimaankuna iftiinkaasuu leeyahay farqigaasaa u dhaxeeya waa tusaale cajiiba haddii aad usii fiirsato farqi baa u dhaxeeya hunaaka farqun bayna nuuri wadiyaa nuurka labada erey carabiga iyo diyaaga diyaagu waxa weeye iftiinka aadka u badan nuurkuna waxa weeye mid yar iyo mid weynba uu yeeshaa marka ilaahay xag hore wuxuu soo yidhi falamaa adaa'at haddana wuxuu yidhi dahaba allaahu binuurihim muu odhanin dahaba allaahu bidaw'ihim hadduu odhan lahaa daw-oodii buu la tegay iftiinkii waxaa suuragal noqon lahaa iftiinkii badnaa baa lagala tegay laakiin in nuurabaa u hadhay marka laakiin halkan macnuhu uu yahay nuurkiibuu ilaahay ka qaaday waxbaba uma hadhi weeye meeshu way madowda waayo daw-a ka badnaa nuurka waa latiifo jirta wey latiifada labaad ama faa'iidada kale waxa weeye nuur iyo naar baa jira markii hore istawqada naaran bahay dahaba allaahu binaarihim muu odhanin markii dambena ee muxuu yidhi binuurihim farqiga jiraa waxa weeye naartu nuurna way leedahay kulaylna way leedahay markii hore dab bay shiteen dabkaasi iftiinna wuu lahaa kulaylna wuu lahaa marka kulaylkii waa loo reebo iftiinkii unbaa laga qaaday macnaha uu tusinayo dahaba allaahu binaarihim aanuu odhanina binuurihim yidhi naartu faa'iidaday lahayd oo nuurkaaba laga qaaday laakiin kulaylkay lahayd waa loo reebay arrinta mulaaxadada kale waxa weeye ama arrinta kale aynu fiirinaynaa nuur iyo dulumaad qur-aanku markuu xaq iyo iimaanka ka warramaya wuxuu idhaahdaa maxay nuur gaalnimada markuu ka warramayana dulumaad sidaasay to xaqu waa mid keliya faraarama leh mana filqana dadka xaq doonayaana way midaysan yihin waxa la yidhaahdo baadiduna waa ku nooc ayay ka dhigantay gaalnimadu waa imise nooc arrintaa kalena way ku jirtaa sababta nuurkana mid qura looga dhigay dulumaadkana wax fara badan looga dhigay وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء أما بعد وسورة البقرة يا آياته منافقين تكور رميي آيات السقالية طبعا قال الله تعالى أو كصيب مثلهم تساله وحاو كدغاي منافقين كمثل الذي تساله أوكله كي أوكله إلا مدي وين صارنا أو كصيب من أمر رواب أوكله معناه كأصحاب صيب مضاف بالوسط قدريه كأصحاب صيب واحد منافقين تو جايسين كرتات كشبه كرتا قالوا الرب دايو من السماء حق كرو رب كسو دايا فيه ظلمات ورعد وبرق رب وحا كدح جرو وتا كد عريال يا رعد يوه محي انكد يا برق يوه اللاعه يجعلون اصابعهم فرهودا waxay gelinayaan oo looga jeedo xubnaha waxay gelinayaan dadka roobku u daaya fi aadanihim dhagahooda ay safarta u gelinayaan min as-sawaa'iq danabka ama hanqarka dhacaya daraadi giridaaya ka daraadi ba faraha dhagaha u gelinayaan hadar al-maut iyagoo ka cabsanaya dhimasho oo isleeyna mubah danabkaasi idin dilaa wallahu muhiidun ilaahay wuu koobay الكافرين قال بالكافرين قال هذا والله محيط بالكافرين قال هذا إلهي لو ولا بو كمره هذا وها إسلام يجوا هنا يدين كوابين استجا كوابي يكاد البرق هلا عن ولا لعض هيا يكاد وحود وانا يهلا عاص البرق يخطف أبصارهم إنه منه هذا رفطه وقاضبا كلما أضاء لهم
mar kasta oo hilaacaasi dhulka u iftiimiyo mashow fiihi dhexdiisay soconayaanoo way tallaabsanayaan waidaa adlama calayhim markuu ku madoobaado ee uu hilaacaasi dhaafo qaamuu way istaagayaan ilaa meel u dhaqaaqaan ma jirto walow shaa allaahu hadduu ilaahay doonayo la dahaba wuxuu la tegi lahaa uu ka qaadi lahaa bisamcihim maqalkoodana caadiga ah wa absaarihim iyo araggooda aragyaashooda ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wax walba isaga ayaa kara oo aan waxba ku adkaanaynin rabbi subxaanahu wa tacaala tusaalaha hore waynu soo aragnay kanna waa tusaalihii labaad marka ereygaas aw ah culimada waxay yidhaha waa maanicatu alkhuluw laa maanicatu ljamci oo macnihiisu yahay ereygu wuxuunu diidayaa uun inay labada tusaaleba meesha ka wada baxaan laakiin ma diidayo inaad labada tusaaleba wada siiso munaafiqiinta labada tusaale waad wada siin kartaa waxaad odhan kartaa munaafiqiintu tusaalahana way leeyihin hore tusaalahana way leeyihin oo labada tusaaleba ay ka horena uu bixinayo wareer kan dambena uu bixinayo cabsi labadaa tusaaleba way leeyihin labada tusaale un baan ka wada bixi karaynin meesha maanicatu ljamci ma ahe waa maanicatu lkhuluwi meeshii baanay ka wada bixi karayn labadaa tusaale waxaa markaas mudan inaynu wax ka xusno tusaalayaasha qur-aanka dhexdiisa qur-aanku tusaalayaal badan buu bixiyaa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyaguna tusaale ayay dadka siiyaan markaa tusaaluhu faa'iidooyin badan buu leeyahy faa'iidooyinkaa waxaa ka mida wacdi markuu ilaahay dadka wacdiyayo tusaalu siiyaa waxaa ka mida alxahu wazajru dadka marka wax lagu dhiirinayo ama wax loo diidayo tusaalaa la siiyaa waxaa ka mid ah alictibaar tusaalahaasaa jira ku cibro qaado waxaa ka mid ah taqriibu lmuraad lilcaql wixii la doonayo oo caqliga loo soo dhoweeyo maalan shaygii lagaaga warramayey marka sawir lagaaga siiyo wax lagu idhaahdo waxaa laguu sheegayaa kanuu la mid yaho kanuu la mid yaho kaasuu la mid yahay waxaad arki karayso waxa weeye waad ku qancaysa maalan qur-aanku jannada ayuu aada uga warramaa dee waxaanaynu adduunka ku haynu tusaale inooga dhigaa tusaalayaashu waa kuwa ilaahay wuxuu uhi watilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tusaalayaasha san qur-aanka dhexdiisa samaynaya aan idin yeelayaa dad caqliluun baa ilaahay ka qaatoo fahma kii kale war caadiya ayuu qaadanaya watilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun inay dadku fikiraan ay fahmaan tusaalayaasha ilaahay uu siinayaa mudan faa'iidooyinka tusaalayaasha waa kuwaas sidaasaana ilaahay uu inoogu dhiiriyey faa'iidooyinka waxaa ka mid a iimaanka qur-aanku mar uu ku bayaamiyaa sidan aynu arkayno waa tusaalihii iimaanka iyo tusaalihii gaalnimada fadeexaddii munaafiq khayrkii dadka la isugu yeedhayo gaalka iyo muslimkaoo laba tusaale loo kala bixiyo haddaynu eegno tusaalayaasha qur-aanka halkaa imika laga bilaabo ilaa suuratu taxriim 21 maal ama koob iyo afartan baan koob iyo afartan tusaale ayaa isdaba yaala oo ilaahay dadka wax ugu iftiiminayo oo wuxuu u sheegayo ugu soo dhaweynayo koob iyo afartan ka tusaale waa koob iyo 20 suuradood min suurati albaqara ilaa suurati taxriim marka meesha suuradda ugu tusaalayaal badanina waa suuraddan imika aynu marayno ee suuratu lbaqara 9 tusaalaa ku jira waxaan jeclay waqti kooban si aad sawir fiican uga hesho inaan yar dul marno tusaalayaashaas halkan ilaahay laba tusaalo bixiyay mathaluhum kamathali alladhi istawqada naara aw kasayibin min as-samaa an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثله كمثل صفوان ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
أيود أحدكم أن تكون له جنة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكنتم على شفا حفرة من النار. آيات آل عمران يكبل آمنس. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، وآل عمران سورة الأنعام بعد قاعدة كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، سورة الأعراف. مثله كمثل الكلب، سورة يونس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء، سورة هود. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، سورة الرعد. إلا كباسط كفيه إلى الماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سورة إبراهيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. ساسادو سيودا سادو مركا كلنا وحب بلاد ما ضرب وضرب الله مثلا قرية وضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فكأنما خر من السماء ضرب مثل فاستمعوا له مثل نوره كمشكاة. ساسو بعض وضعيس marka intaasoo dhan wuxuu aynu uga jeednaa marka aad aayaad ka marayso in aad fahamto xigmadda looga jeedo iyo waxyaabii laga qaadan jiray amthaash oo dadka adiga jeer markuu quraanku u warramayo de shay waxa uu sheegay aqligooda ay ku fahmayaan, laakiin markuu tusaalahan siiyana ishii bay ku sii fahmayaan. taas inta marka aynu kaga gudubno labadan tusaale ee imika aynu soo aragnay midna dabka Ilaahay uu ku shabahay midna roobka ka hore waynu soo aragnayoo waxa iftiinka keenaya waxa iimaankii markii hore ay galeen, waxa madowga ku keenayna waxa gaalnimada u baxeen. kan dambe wuxuu Ilaahay sheegay roob iyo madow uu leeyahay, madowye uu leeyahay iyo onkod iyo hilaac iyo bahalkan hanqarka la yiraahdo iyo danab, labadaba loo yaqaan de kaharabaaga watee meelaha ku dhaca gubada. marka la eego nimankan munaafiqiinta xaaladooda tala madarka waxa la mid ah quraanka oo de sidoo roobku u nooleeyo dhulka ayuu quraankuna quluubta u nooleeyaa ama islaamkuba. quraankii iyagu mararka qaarkood waa kuwa wax ka sheego shubuhaad iyo madmadow ay ku furaan, waa dhulumaadka shubuhaad iyo madmadow mala quraan, laakiin iyaga si ay dadka uga firdhiyaan shubuhaad iyo madmadow ku fura waa dhulumaadka. quraanku wuxuu leeyahay wacdi iyo waciid. wacdigu waxa weeye bushaaro iyo baraare dadka uu u yabohayo wanaagsan, taasina waxa weeyaan maxay waa barqiga iyo hilaaca. quraanku wuxuu leeyahay waciid iyo hanjabaad iyo huruuf loo ballan qaadayo iyo halaag loo ballan qaadayo nimanka munaafiqiinta iyo gaalada. kaasina waxa weeye maxay waa sawaaciq danabka weeye. marka munaafiqii kolku quraanku wacdi iyo wanaag sheegaya wuxuu salaam wallahi adna wada shahaadato waad ku jirtaa waadigan muslimkii dhex socda ayuu oranayaa. marka waciidkaasi uu yimaadee munaafiqiinta la fadeexadeeyo intaasoo aayadooda tilmaamahooda dhigdhigaya ay soo degaan sida suuratu tawba oo kale iyo halkan aynu ka maraynay suuradan, markaana uu naxaya sida uu naxo qofka had iyo jeer danabka iyo hanqarkaasi uu ku soconayo. marka waxay isku dayayaan waciidka iyo fadeexada munaafiqiinta ay socoto aayaadku ka waramayaan inay u dhagooleeyaan. suuratu التوبة آخر كذا واحد أركيس يجوا حضرتي النبي قام مجلس كي النبي فرديا عليه الصلاة والسلام والنبي قام يلا فرديا. أيام مركو القرآن كل ماذا وحرنش ماذا قال آنفا وتقول له محو آخرية حتى ما شويت شو جنبه. مركا تاسوا ودقولين أنت أي صواعق ذا يضنب كقرآنك أي يسكت لك ترى يعني. مركا وحيوي قانا علماء البلاغة
التشبيه التمثيلي بالله تشبيه التمثيلي marka nimankani xaalada ay leeyihiin iyo xaaladaas la isku shabahay roobka iyo inta uu wato waxa la mid ah quraanka iyo inta uu wato marka natiijada ka soo baxdayna waxa weeye quraanka kariimka iyo khayrka uu leeyahay kama faa'iideysanaya munaafiqiin laakiin halaagaas uu kala kulmaya aw kasayib min as-samaa'i waxaad ku shabihi karaysaa roob xagga sare biyo xagga sare ka soo daaya sama waxa la yiraahdo wixii ka sareeyo fihi dhulumaatun wa ra'dun wa barqun roobkuna gudcuriyaal buu wataa iyo onkod iyo hilaac yajcaluuna asaabi'ahum fi aadaanihim farahooda ay dhagaha gelinayaan kale waa intan u horeysay xubnaha yar yar min as-sawaa'iq hadar al-maut tanabka iyo hanqarka dhacaya daraadiyo geerida ka cabsanaya wallahu muhiidun bil kaafiriina ilaahay gaaladu koobay bushaarada qaata way dad badan baa gaalku wax weyn u leeyahay aad uga cabsada marka wallahu min waraahi muhiit ilaahayna gabigooda uu koobay marka haduu ilaahay qalbigaaga ku weeyay gaalku qalbigaaga ku weynaan maayo ilaahay baa dhan walba ka koobay isaga uu magan gal gaalkaad ilaahay ka magan galaysa oo shaydaankaad ka magan galaysa oo sharwadeenkaad ka magan galaysa ilaahayna waa kugu filan yahay wallahu ghalibun ala amri hilaaca isaga ah yakadul barqu yakhdafu absaarahum kullama adaa ma lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qam hilaacaas wuxuu dhawaanayaa inuu indhaha qaado inaad u fiirsatay mooyaane marka hilaac walala lac u yiraahdo adigoo madow ku jiray muddaanad waxba sii arkaynin oo indhuhu ku waxaysbayaan oo shucaac ka duulaya sidaas oo kale weeyaan oo quraanka kariimka ina dibkaas ku haya munaafiqiinta aad bay uga naxayaan markuu hilaacaasi baxo way yara dhax soconaya marka muslimka loo bushaareeyo waxay soranayaan mala waa ku jirtaan idinkuna way ku yar bushaareysanayaan marka la kala saaro muslim iyo munaafiqna ee quraanka kala saarana waa idha adlama alayhim qam markaasay quusanayaan labada xaaladood baa la isku shabahay ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم الهي awoodii way badan munaafiqna isaga uun baa ka dambeeya haduu doonayo indhahan ay wax ku arkayaan iyo maqalkaba uu ka qaadi lahaa uu dhaga tiri lahaa oo uu indha tiri lahaa haduu doonayo qayb kale inuu sii gudubnay munaafiqiintii tilbaamoodii 13 ka aayadood bay ku dhamaadeen wixii ay sameeyeen ma facalu wa ma fucilu waxay falaaniyo wixii lagu falay soo aragtay iyaaka wa nifaaq marka waxa cudurka la yiraahdo nifaaq iska ilaaliyo ka feejignow ya ayuha an-nas billahi dadaw ubudu rabbakum ilahi na'budu alladhi khalaqakum ilahi din aburay والذين من قبلكم امته كهريين ابوray لعلكم تتقون waxay u dhowdiin in ilaahay ka cabsataan subhanahu wa ta'ala alladhi ilahi aabuda ja'ala lakum al-ardha dulka idin ka dhigay firaashan gogol was-samaa samadii sareysayna wuxuu ka dhigay binaa mid dhisan wa anzala min as-samaa'i maa'a xagga korana ilaahay biyo ka soo dajiyay subhanahu fa akhraja bihi wuxuu ku soo saaray xagga sare uu ka soo dajiyay من الثمرات من أردن رزقا لكم يضع يدين تهاي محي أرساقدي وحد يفسطان وعنتان مرها سأرساقدي دينا فلا تجعلوا لله أنداد إلهي هوية لنا إلهيال يا وحياباء لعبدان وأنتم تعلمون إذن كوغلنا إياه إنان إلهي عدنا وهلنين عدنا وحلي يرانكرين باغبا كدعي yeedmadaasi ilaahay wuxuu u yeedhayaa waa khalqiga oo dhan gaal iyo islaam iyo wuxuu abuuray yaa ayuha الناس jinkiina waa soo galaya yeedmada inkastoo dad un lagu tilmaamo amarku ilaahay siiyo waxa weeye ilaahay nacaabuda marka insaankii waxa loo abuuray cibaadada wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun jiniyasi uma abuurin buu ilaahay wax kale inay caabudaan mooyaan marka dadka hadiya jeer ilaahay caabudaa waxay garteen sirtii nolosha dadkaan ilaahay caabudnimo mabay garanba waxay u noolyihiin
rabbakum rabbinimada ilaahay uu noo idaafeeyey idaafadaas waxay tilmaamaysaa inuu xaq u yeeshay cibaado dee waa kii ku abuuray iskamaad abuurmin hooyada ayaa aabahana kumay abuurin ilaahay baa ku abuuray subxaana wa tacaala am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu الsamaawaati wاlard bal laa yuuqinuun saddex mid un bay noqon lahay inaad is abuurtay iyo in cid kale ku abuurtay iyo inaad ilaahay ku abuuray iyo inaad iska abuurantay waa afartaa midun saddex ma jiraan cid kale hor ilaahay ahayn oo ku sheegan karta ama odhan karta anigaa dadka abuura ma jirto namruud baa isqaadqaado yidhi qoraxdaasaan ka taliya in yarbu kusoo fashilmay marka cidda maanta tidhaahda warshadaydaa dad soo saartaa dee horeyba ka fashilmaysa qof odhan karaya anaa wax abuurayna ma jiro ka yidhi waan iska abuurmaynaa alcadamu laa yuujid waxba la-aani waxba ma keento saddexdaa kale markay hadheen waxaa soo hadhay inuu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala jubayr ibnu mudcim aayaadka aynu akhriyayna suuratu duur ku sugan ee arrimaha isbarbar dhigaya qofka caqligiisa qancinaya oo aayadahay qanciyey buu soo jiitay sabab ahaa inaan islaamo rabbakum haddii cibaado un cidaada caabudaysa rabbigiina caabuda الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إذنكي dadkii idinka horeeyay ilaahay baabuuray marka rububiyada ilaahay waa inay raacda uluhiyada ilaahay oo aan la kala reebin oo aan la oran rabbi oo adaan abuuray laakiin cid kale aanu caabudayna ma qabata ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaas israaciya aayadda u fiirso mar haddaad ogoshay inuu ku abuuray cid kale ha caabudayn cibaadadu samarada iyo midhaha ay leedahay waxaa ka mid a lacallakum tattaquun inaad cabsataan cibaado taqwo laga waayo dee cibaado ma aha haddaanay cibaadadaadu wax taqwa lahayn cibaado noqon mayso waxaa jira muqaabalo cajiiba ayaa halkan ka muuqanayso ah firaasha alarda aلsamaa firaashan binaa'an waa fasaxad iyo balaaqadu leeyahy qur-aanku waa eraye iska hor jeedo oo si cajiiba isu qaabilsan awoodaha ilaahay kugu abaabulaya inaad keligii rumayso waxaa ka mid a cirkiibuu ka soo dejiyey xaggiisala biyo wuxuu ku soo saaray maxay midho aynu cunayno adigu ismaad abuurin tan labaadna waxay kuu sheegaysaa arsaaqadaadana maad abuurin oo ma haysi maxaad meel kale ugu kici markaa ilaahay intuu ku abuuray ku maamulaya haddana waxaad afka ku guraysana isagu ku siiyey falyandur ilinsaanu ilaa طacaami annaa sababna almaaa saban ilaa aakhir alaayaat bal qofka bani aadamkii wuxuu ku nooliyun ha eego iyo cidda samaysay iyo noocyadu leeyahy falaa tajcaluu lilaahi andaadan waantum taclamuuna waxay kuu tilmaamaysaa ilaahay sanamyaal iyo waxaa la caabudaan ha u yeelina idinkoo garanayo arkayo ogsoon inuu keligii yahay dee ma qabata ilaahay inaad la caabuddo midaan waxba abuurin oo aan ku arsaaqayn ilaahaan labadaa abuurna haynin arsaaqadna hayn arrinkiisu waa maxay ilaahnimadiisu waa midaan jirin saasuu qur'aanka kariimkaa ilaahay dadka ugu qancinaya subxaanahu wa tacaala وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما أما بعد وسورة البقرة هي تفسير كيدي آيات صدحية لباطن قال الله تعالى إلهي بأوحر سبحانه وتعالى وإن كنتم هدياتهن ضديهم في ريب هدا شكي كجسوجنتهن مما قرآنك أما وحيك نزلنا على عبدنا أدون كيجا أن كسود تشينون نبي محمد فأتوا وحا كانتان بصورة صورة كان من مثله قرآن كلام ذا أما من مثله نبي وكلا نبي مثل مذا ككان وادعوا شهداءكم وادعوا وحاو يارتان شهداءكم قوب توغياشين شهداء مرخاتنا وين نغضان هل كان لكن وكو أعوانتها إذن ساعدية إذن كساعد لها قرآن سمينت haddii qur-aan samaynta cid idinka saacidda helaysaanna u yeedha min duuni illaahi kuwaasoo aan ilaahay inta ka sokaysa
sheeganaysaan in kuntum saadiqiina haddii arun tihiin kuwa run sheegaya fain lam tafcaluu haddaydaan sidaas samaynin oo qur-aan keeni kari weydaan walan tafcaluu samayna kari maysaan weligiin fattaqu naara naarun ka cabsada oo iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa waxa lagu hurinayo ee lagu shidaya annaasu dad uu yahay walxijaaratu iyo dhagaxaan uciddat waxa loo diyaariyo loo meel dhigay lilkaafiriina gaalada sidaasay tahayoo ilaahay xaqiisa iyo cibaadadiisa waxaa ka mida waxyigan oo laga guddoonto hadiyadii iyo hibadii weynayd buu keeno qur-aanka deeqdii weynayd wey waa kalaamkiisii wey marka kalaamkiisaasuu ilaahay ina faray si uu inoo hago oo inoo saxo waynu u baahanoo kama maarmi karne inaynu ku dhaqannaynu ilaahay ka qaadano subxaana wa tacaala cidda ka shakisan buu markaa ilaahay dood u soo dhigay oo ula dooday ama qancinaya ama taxaddi car weeye taxadigu car waxaa keen markaa ilaahay iyagii buu la hadlay gaaladii iyo mulxidiintii iyo mushrikiintii isku wada dar midi ilaahay ma jira buuhi midina qur-aanku ma jira buuhi midina ma keenin midina ma karo haddaa ka shakisan tihiin qur-aankan aanu ku soo dejinnay addoonkayaga oo leedihiin isagaa samaystay bal idinkuba keena haddii lagu idhaahdo waxaa iyo waxaa bal carkeen taxaddi baa loo yaqaana af carabiga waa dhaabad waxaasaan ku hordhigay car dhaqaaji oo dhan isaga riixi marka icjaaz iyo taxaddi waa mucjis qur-aanku waa mid ku daalinayo macnaha aanad keeni karayn waa mid sidoo kale taxaddi kugu ahoo ku hor taagan inaad isagoo kale keento marka icjaaska qur-aanka kariimka icjaaskiisu intaynaan horta halkaas dhaafin mowduucii cibaadada ayaynu wax yar ku noqon lahayn cibaadadu waxay leedahay midho ayay leedahay midho cibaadadii noocyadeedii kala duwanaa waxyiga raacidiisu ay ka mid ahay waxay leedahay midho aynu ka goosanayno midhahaasoo runtii inaguba aynu u baahannahay intaan midhaha la gaadhin iyo dheefta inoo leedahay waa xaqii ilaahay oo aynu fulinay subxaana wa tacala cibaadadu saddex bay ka koobantay inaad ilaahay xaqiisa siiso naftaadana xaqeeda siiso ummaddana xaqeeda siiso qof kastoo bani aadamkan jooga xuquuq baa laga doonaya iska soco oo iska cun oo iska dhaqaaji maaha laakiin qofku wuxuu u abuuran yahay liyuxiqa alxuquuq xuquuqda laga sugaya inuu xaqiijiyo si isaguna xaqiisa u helo xuquuqdana waxa u horeeya ka ilaahay oo xaq walba ka horeeya naftaadiiba xaq la siiyey oo iyaba waa ammaano cid walibana xaq bay leedahay xataa alxayawaan baa xaq kugu leh marka xaqii ilaahay ood fulinayso way cibaadadu sideedaanay u tahay gaaya ujeeddo la raadinayo marka aad cibaadaysanayso ha u cibaadaysanin inaad adigu wax ku hesho abubakar buu ilaahay ammaanay wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ila ibtigaaa wajhi rabbihi laclaa ilaahay wejigiisa iyo raali noqoshiisu doonaya cibaadadu waa tanbiihun daa'imu lilinsaan waa midhaha aynu ka qaadanayno cibaadada macnaha aynu waxyaaba aynu cibaadada ka faa'iidaysanayno waa baraarujin oo qofka bani aadamkii haddii aanu cibaadaysanaynin waa gaafil cibaado walood u dhaqaaqdaaba way ku baraarujinaysa kulli baad madaxa la galaysaa waad daboolmaysaa meelaad maraysa isgaran maysa haddaad cibaadada ka tagto waa tadkiir lilinsaan waaqimu salaata lidikri walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru sma allah aqimu salaata lidikri wuu baraarugayaa qofku waa qof fatinahoo maskax furan oo soo jeeda oo xayaatadiisu saciidta cibaadada midhaheeda waxaa ka mida waynu ku xorownaa waa taxriiru lilinsaan oo waxuu ka xoroobayaa wixii uu ciddii kale u caabudi lahaaba hadduu ilaahay caabudi waayo waa hubaal inuu cid kale caabudayo wuxuu ka xoroobayaa fulaynimada iyo bakhaylnimada iyo didmada uu qofkii didsan yahay iyo dulliga iyo akhlaaq xumada ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban cafwan ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar
salaadu foolxumada iyo dembigay kuu diidaysa cibaadadu waa faa'iidooyinkeedu aad bay u badan yihiin kuwaasaa ka mid ah aynu u soo noqonno qur-aanka kariimka ah iyo taxadigiisa ama siduu had iyo jeer qofka bani aadamka ah ugu caddaynayana cidina la iman karayn gaaliyo islaam هناك مراحل للتحدي في القرآن قرآنكم مركا أو أضوامها كور جوكسنا يا أو عطينا يا ناني كيني كرينين مد استجى الله مده مرحلة ذو مريا أما آياته سيابك للدوام بيدتك لو أتكينا يا لولي هاي بالقرآن كانوا كلا كينا سيابة دورة مر إلهي وحاول تلمامي إن hadday isu wada tagaan khalqigoo dhammi jinkoodii iyo insigoodii iyo gaalkoodii iyo islaamkooda ama noocyadooda kala duwan inaanay qur'aankan oo kale keeni karaynin qul la in ijtamacat al-insu wal-jin ala an ya'tuu bimithli hadha al-qur'an la ya'tuuna bimithlihi walaw kana ba'duhum li ba'din dhahira jin iyo insi hadday isu tagaan oo iswada caawiyaan midka aftahana iyo mid falsafada yaqaana iyo mid walba isu yimaadaan oo xataa jinka qarsoonna kaashadaan lama iman karaan buu ilaahay quraanka marka waa isagoo isku dhamaystir mar kale wuxuu ilaahay tilmaamay haddii 114 ka suuradood ay kari waayeen bal inay 10 isku dayaan soo aayadaasina ma jirto qul fa'tuu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyaat bal 10 suuradood oo idinku soo nabnabteen oo isku soo hagaajisteen oo quraankan oo kala akeena وايه تاسنا way suuroobi weyd tan imika imanaysa halkana maxaynu haynaa fa'tu bi suratin min mithli suurad kaliya kaana suuradda quraanka u yar in a'dayn bal in a'dayn oo kale isku daa kuwii hadiya jeer nabinimada sheegan jiray musaylimatul kadhaab iyo qaar badan oo nabinimo sheegtay qaar baa isku dayay oo yiri bal waxaanu sameeynaynaa quraan de qisadooda wada akhriid doonta iyo kii la joogay ka warinaya saaxiibkii habaaydo wariyaa wartan inaga socon mayso warnacnacdaadaas waa nacnacdaada iyo dhaqaqlayntaas inaga socon mayso wallahi inaanu ka aad samaystay kii Muhammad lamid ahayn inaga daa inaan ku fashilmin المهم وأرن عجيبة إلى يومنا هذا عتاسوها شيء مجرد وأرن وين وعطينا إياه وحيقنوا إلهي حق سكيم سبحانه وتعالى هذه مراحل كالتحدي وكاية وهناك أنواع للإعجاز معجز لماذا قرآنك ينو يمد عجيبة وحلم إذا أنو تشري نوعية لا هذا فربضا مدى فن النباتر لا يدى هذا فن الإعجاز وكتب لقاء اللي فالرئيسية دنبيصبا نوعية الإعجاز كوحا كم إذا معجز لماذا قرآنك الإعجاز البياني والإعجاز العلمي والإعجاز التشريعي والإعجاز الغيبي إن عمرك كأكتب بيانك هي بلاغة القرآن يصير وحوع عضينا ذاتك هذه يشير لغة عربية يقانا ويسلمين ويسلمين وحي لهذا عد كاني كرتا مجفتها هذين عاون الإسلام محاضرات استنانا كقلنا الإعجاز البياني والله يا والله قمر ما انكره على ركي الشيخ باوح في السيرة وإن يركبا نبي نوح بإلهي وكور ما وحوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما نبي نوح قلدي سي وحو دخ جوبي كن سنة أو كنتر لا يو دخ جوبي marka waxay leeyihiin erayga sana meesha uu dhacay caam ma gali karo halka caam uu dhacayna sana ma gali karto erayga sana waxa loo isticmaalaa bay yiraahdeen in tiradan bisha shamsiga ah ayaa loo isticmaalaa qorraxda sana waxa kale lagu tilmaamaa abaaraha labaduba wax macruuf ah weey caamna waxa loo isticmaalaa sanadkan dayax in lagu tiriyo waxa kale loo isticmaalaa maxay barwaaqada markaad u sii dhab gasho nabigani muddo dheerna uu dhex joogay muddo kululna uu dhex joogay weey ila qamariga iyo yamaa dheer shamsiga qamariga waxa dheer shamsiga fara badan
marka sanado fara badan oo sidii abaarta u kululaabu dhex joogo intuu ka maqnaana waxay ahayd sanado kooban oo kuwa qamariga la mid ah barwaaqana ah labada erey isma bedeli karaan waa tusaale icjaaska cilmiga ahina de maanta cilmigan tajriibiga ah ee gaaliya islaamba dadku ay diraaseeyeen ay baareen xaqaa'iq cilmiya baa jira oo qur-aanku hore uga sii warramay oo maanta cidda firi karta aanay jirin oo gaaladu markay ogaadaan inuu qur-aanku ka warramayo waxaanay gaadheen tijaabada ah ay qaarkoodna ku islaamaan qaarkoodna yaabaan oo isdhiibaan qaarkoodna markay ogaadaan qariyaanba waxaa ka mid ah cilmi xaqaa'iqa la xidhiidha cilmi alajinna cilmiga had iyo jeer ilmaha marka uu caloosha ku jira iyo qur-aanku siduu uga warramay iyo tijaabadan casrigiina siday u waafaqday icjaaskii tashriiciga ahaabaa isaguna la midoo xagga sharci dejinta sharci la dejiyo addoomo loogu talagalo oo hago oo saxa oo dantooda ah oo kan lamida lama soo heli karayo wax macruufa weeye taasina laakiin dee waxaa calaf ku aya cidda weydaaratay taasi saluugta الاعجاز الغيبي baa jira waa qaybaha icjaaska ee quraankan kariimka ah ayuu kamid yahay quraanku wuxuu ka warramay wax maqan oo sidoo u sheegay buu u rumoobay oo loo arkay taasina aad bay u badantay waa mid walba insha Allah markaynu halkiisa marayno ayaynu xusi doonaa waxyaabo maqan oo ama quluubta dadka ku maqan ama aan wali dhicinba ayuu quraanku ka sii warramay sidoodii baana loo arkay waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam أبو بكر الصديق شرط كلقل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين شرط لقل بولي سيدا إلى هاي وشجاع قرآن كعدي إن من كان روما كأمر هير روم أي كجول يسند دونا إن من كان هير إيران سيدي مدة مركي هلا الصور ضعفه وشرط كلا دكتور مدة اللي بعد بيكون هرجش رواية صحيحة سيدي الباميس وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار هدي انتو اسكود دايدين هدا سبين كري ويدين دبنا وسمين ميسا لن توا أبدية ولن تفعلوا وانا جملة معترضة جوابت شرطي هورنا وحويان فاتقوا النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فإن لم تفعلوا هذا إذا سمين القرآن سمين تأسيدين سروب ويدو ولن تفعلوا سمين كريم ميسان مستقبل كأوحيد إلا قد بني وحوي فاتقوا النار والنار مسكيل عليه السيدة وكل نار بدنا يسانه إذن كو قنعوا أركي قرآن كوحلا مدينة نيتشرين إنا هدنا كسي ديرتان حمانتان ديب كذا إلا هذا النار عبصدا التي وقودها الناس والحجارة naartiina ilaahay uu ka warramay waxa lagu horinayaa xaabada wahay waa dad iyo dhagaxaan talo dhagax maxaa loo doorto laba dhagaxba uu noqonayaa dhagaxaantani de kulaylkay ka qaybihi bal adigu dhagax kululaaday u dhawow uu ku diiranba dhagax imika kululoo sida uu karaya haddaad biyo ku shubto baasha sawnada la yiraahdo Soomaaliya sawnada waxa weeye marka qofka la kululeynayo dhagaxaan kululba halkan la dhigaa agtoodana qofka waa la fariisinayaa ninkii galay uu arkay dhagaxaas uma biyo lagu shubaya oomiga ka soo baxa ayaa dhididka ka dhamaynaya kulaylkaas uu leeyahay de qalalkana waxa ugu wacanba biyo yaraanta inkastoo qolada chemistry-gu ay dhaan dhagaxa laftiisa de biyo waa ku sii jiraan haba yaraadeen haddana biyihii soo yar daraadeed baa ugu wacan inuu kulaylka qayb noqdo dhagaxa waxa kaloo kamid ah dhagaxaantii adduunka ay caabudi jireen iimaan lawayaashu bagwaanadoodii sanamyaasha casriga hindidu ay caabudeen ilaahan bagwaan marka dhagaxaantii noocaha ilaahiyaasha u yaqaaneen baa la soo ururinayaayo si dulligu ay isula duloobaan baa naarta lagu wada ururinaya caabidkii iyo macbuudkii kii wax caabudaya dhagaxu caabudaya halkaasuu ilaahay ku ururinaya subxaanahu wa tacaala marka sidaa cajiibka ah baa qur-aanka kariimka ahi uu dadka wax ugu iftiiminaya oo ugu bayaaminaya ijaaz albariic baa la yiraahdaa qolada bayaanku ayay u yaqaanaan fataqu naar waxay intaasi macnaha u taagan tahay wax fara badan faadaas waxay u taagan tahay haddii aad aragteen quraanka inuu xaq yahay haddii aad kari weydeen mid la mid ah inaad timaadaan inaad la timaadaan haddaba soo islaamo oo ilaahay ka cabsada naartana ka cabsada waxaasoo dhan baa
ayaa intaasaa lasoo ururiyo lasoo koobo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam